السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سلام يا دمان أرض الصوماليات iyo dhammaan guud ahaan bahda waxbarashada. Halkan waxaan kusoo gudbi doonaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo subxaanahu wa tacaala maadada chemistry-ga kalaaska 4-12aad. Magacayga waa Xasan Caynte, waxaan ahay arday Soomaaliyeed marna macallin Soomaaliyeed. insha Allahu tacaala waxaan halkan kusoo gudbi doonaa wuxuu Ilaahay iga garadsiiyo maadadan gaar ahaan fasalka 12aad. Bio Academy waxa uu diyaar idin leeyahay guud ahaan 4 fasal ee dugsiga sare gaar ahaan fasalka 12aad oo hadda hawshiisa ay socoto in ardayda Soomaaliyeed ee galaya imtixaanka qaran ay ka helaan guud ahaan bahda waxbarashada ay ka helaan tafaasiil dheeraad ah. insha Allahu tacaala waxaan idin la diyaaraa macallimiin u diyaarsan macallinimada iyo maadada ay dhigayaan Ilaahay idamkiis ka caynti ahaan. waxaan idin soo gudbi doonaa Ilaahay idamkiis maadada chemistry-ga gaar ahaan fasalka 12aadka haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Bio Academy waxa uu leeyahay YouTube, waxa uu leeyahay page Facebook ayuu ku leeyahay. waxaan rajaynayaa insha Allah in halkaas aad kala socon doontaan waxyaabaha iyo fariimaha ay la soo dhigi doona iyo casharada insha Allah tacaala haddii Ilaahay raalli ka noqdo. waxaan halkan ka geli doonaa Ilaahay hadduu raalli ka noqdo maadada chemistry-ga fasalka form 4 ayaan halkan ka geli doonaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo. casharka koowaad ayaanu qaadan doonaa Ilaahay idamkiis. Chapter 1 ayuu noqon doonaa casharkeena koowaad. Chapter 1 magaciisa waxaa la yiraahdaa hydrocarbons. Chapter 1 waxaa la yiraahdaa hydrocarbons. Hydrocarbons waxaan ku baran doonaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo. waxaa la rabaa bartaha in markii uu casharku dhammaado ama chapterkani uu dhammaado in uu awoodi karo awoodna u yeelan karo qodobadan soo socda in uu meel saari karo ama haddii la weydiiyo wax kamid ah uu sheegi karo ugu yaraan. waaye qodobka koowaad wuxuu noqon doonaa Ilaahay idamkiis inuu qeexi karo describe-na ku samayn karo kow hydrocarbons, in uu kala saari karo hydrocarbons-ka qaybahooda inuu kala saari karo. sidoo kaleeto waa inuu distinguish oo ku samayn karaa qaab dhismeedyada ama structure-ada ay leeyihiin alkeenka iyo alkyne-ka. sidoo kaleeto aromatics-ka waa inuu qofku kala saari karo structure-adooda. waxaa halkan sidoo kaleeto ku jiro qodob kale oo asagana inuu qori karo essential formula, yacni in uu qori karo ardaygu ama bartuhu ama learnerku ama qofka dabcan bahda waxbarashada inteena ku jirto waa inuu qori karaa qaab dhismeedka iyo magacyada alkeenka iyo sidoo kaleeto alkyne-ka iyo aromatics-ka waa inuu qori karaa qaab dhismeedyadooda kala duwan. waxyaabaha la xiriiro properties-ka la xiriiro iyo types-ka kala duwan ee hydrocarbons-ku leeyahay iyo structure-adoodana sidoo kaleeto waa inuu wax ka sheegi karaa. waxaa halkan kugu explain garin doonaa ku faahfaahin doonaa isomerism of hydrocarbon haddii Ilaahay raalli. waxaan noogu xigi doonaa preparationka ama qaabka loo diyaariyo hydrocarbons-ka Ilaahay idamkiis waan baran doonaa. qodobka ugu dambeeya wuxuu noqon doonaa isticmaalka hydrocarbons. chapterkeena koowaad waxaan ku baran doonaa contentskiisa ama si guud waxaan ku baran doonaa qaybahan meesha noogu xusan. waaye contentska wuxuu noqon doonaa introduction inaan ka bixino hydrocarbons-ka, inaan kala saarno hydrocarbons-ka, alkane inaan barano, alkene inaan barano, alkyne sidoo kale inaan barano iyo aromatics-ka inaan barano. waaye intaas ayaan ku faahfaahin doonaa Ilaahay idamkiis. waaye casharkeena koowaad aan hore sii galno marka. ciwaankiisu waa hydrocarbons. chapterka magaciisa ayaana ah hydrocarbons. aan galno marka magacaan meesha inoogu qoran ee ah hydrocarbons. dabcan chapterka magaciisa waaye laakiin waxa uu ka kooban yahay markii aan gudaha u galno kelimadan intaana oo hydro ah waxay ka kooban tahay ama waxaa la yiraahdaa kelimada hydro ah macno badan way yeelan kartaa laakiin in this chapter markaan joogno hydro waxay noogu taagan tahay curiyaha hydrogen ay noogu taagan tahay. sidoo kale carbon ayana waa curiyaha carbon oo aan naqaanay oo ahaa people ka tirsanaa oo dabcan ahaa curiyan metal ah. dabcan labadooda markay isu tageen yaa waxay qaateen magaca loo yaqaan hydrocarbons. markaan definition karayno ama qeexayno waxa dhowtu wuxuu noqon doonaa isku dhis ka kooban carbon iyo hydrogen ay noqon doonaa. way halkan waxaa noogu qoran sidaas oo kaleeto carbons waa isku dhisyo that contain kuwaas oo ka kooban carbon and hydrogen only kaliya carbon iyo hydrogen oo kaliya. tusaale meesha waxaa noogu qoran methane, propane iyo bentane ayaa noogu qoran. dabcan qeexitaankana wuxuu ahaa ama wuxuu ka hadlayay waxaa lagu sheegaya waa isku dhis ka kooban carbon iyo hydrogen oo kaliya ayaa ku qornaa. haddana meeshan waxaa ka kartaa meeshan waa kana carbon hydrogen sidaa darteed hal carbon iyo 4 hydrogen, 3 carbon iyo 6 hydrogen, 5 carbon iyo 8 hydrogen. magaca namtirism bay kala duwan yihiin. marxaba
hydrocarbonska waxa uu leeyahay sources ama ilo ama meel laga hel ayuu leeyahay. hydrocarbonska waxa uu leeyahay il meel laga hel ayuu leeyahay. saddexdan ayaan u kala qaadi doonaa ama aan dhihi doonaa waa sourciga ama ilaha ama meesha laga heli doonaa hadii laga helo. Kow, natural gas. labo, dhuxusha ama coal waxa loo yaqaan. saddex, petroleum. saddexdaas waxay noqon doontaa isha ama meesha ka helno ama tamarta aan ka helno, sourciga aan ka helno ayuu noqon doonaa hadii la yiraahdo ka dhig. way inta waxay noqon doonaa marka waa sources of hydrocarbons. saddexdaas noqon doonaa natural gas, petroleum iyo coal ay noqon doontaa. marxaba. qodob kale ayaa halkan geli doona, ciwaan kale oo muhiim ayaa halkan geli doona. la yiraahdo classification of hydrocarbon ayaa halkan gelina. classification of hydrocarbon. ablaableynta hydrocarbons ayaa halkan ka gelina. dabcan hydro waxaan ku heshiina wuxuu ahaa hydrogen, carbon na wuxuu ahaa carbon, wariyaha carbon ka caadiga. way marka hydrocarbonska haddii aan fiirino waxaan ku definition garaynaynaa ama aan dhihi karnaa ama aan markaan ablaablayntooda ka hadlayno waxaan leenahay waxaa loo kala qaybiyaa saddex qaybood ayaa loo kala qaybiyaa hydrocarbonska. numberka koobaad waxaa la yidhahdaa on the basis on the bond, on the basis on the bond. dabcan iyadoo lagu salaynayo dabarka, hydrocarbonska waxaa loo kala qaadaa kow saturated, labo unsaturated ayaa loo kala qaadaa. waxaan leenahay number koobaad waa marka koobaad ama according to the bond, dabarka inaga u fiirinayno ama dabarka ku salaynayno waxaa loo kala qaadaa saturated iyo unsaturated ayaan kala qaadayna. marxaba. mid aan galno marka saturated hydrocarbons la fiiri marka. saturated hydrocarbons waxaan leenahay these are hydrocarbons, kuwan waa hydrocarbon that contain kuwaas oo ka kooban only kaliya carbon single bond, yani any two carbon waxa isku hayo kaliya hal dabar ayaa isku hayo. meeshaan waxaan leenahay laba carbon oo kasta waxa isku hayo hal dabar ayaa isku hayo. saturated hydrocarbonska waxaa kaloo loo yaqaanaa alkane, magacaas loo dhihi karaa. saturated hydrocarbonska magaca kaloo loo yaqaan wuxuu yahay alkane waa la dhihi karaa. tusaale ahaan meesha waxaan u qoran methane afar gacmood ayay leedahay, afartii electron ama afartii gacmood waxay ku kala qabsatay afar hydrogen ayay ku kala qabsatay, dhammaantood hal dabar ayayna kula qabsatay. inkastoo wariyaha hydrogenka uusan qaadi karin hal dabar wax ka badan ama hal electron saa wato hal electron kala sheeran ay ku sameeyaan, laakiin tusaale ayay noo tahay oo single bond inay yihiin waxa meesha wada yaallo ayay noo cadaynaysaa. single bond inay yihiin ayay noo cadaynaysaa. marka methane طبعا ethane iyo propane dhammaantood any two carbon haddii laba carbon oo kasta ay meesha soo gasho hal dabar ka badan iskuma qabsan karaan. marka la joogo saturated waa kasa Soomaaligana waxaa lagu yiraahdaa saturated dhergan, macnaheedu waxa waaye yani intii laga rabay dabaradii laga rabay way buuxsameen, waxa uma harsano electronaadkii la rabay sidii la rabay u shaqeeyaan. markaas waxaan dhihi karnaa waa saturated. marxaba. waxaan ku geli doonaa waxaan noo socda qodobka koowaad aan ku jirnaa oo ahaa on basis on the bond anagoo ku fiirinayno dabarka anagoo fiirinayno unsaturated iyo saturated kula qaybinay. saturated waan ka soo dalnay. unsaturated iyana waxaa la yiraahdaa Soomaaliga aan raggelin ayuu noqonayaa. it means silsiladii ama kaarboonadii ama gacmihii meesha electronaadka yaalay sidii la rabo uma shaqo gelin. tusaale kaarboonka afar gacmood ayuu lahaa. kow hydrogen ku qabsaday, labo hydrogen kale ku qabsaday, saddex wuxuu ku qabsaday kaarboonkan kale halkan gacana shaqay weysay. sidaa darteed halkii gacmo shaqay weysay kana gacano shaqay weysay kana gacano shaqay weysay. mid walba wuxuu ku qabsaday markuu waaye iyaga ayaa isku soo laabay. that is why double bond iyo triple bond qaabkaas ay ku sameysmaan. unsaturated kana meeshaas oo ka imaaday. it means gacmihii ayaa shaqay waaya kaleeto, gacmihii kale ayaa shaqay waayay macnaha qaabkaas waa. marxaba. these are marka waxaan leenahay hydrocarbons waa that contain kuwaas oo kooban carbon multiple bond, yani waxa laga wadaa double ama triple ayaa laga wadaa. double bond ama triple bond ayaa laga wadaa. marka waxaan leenahay waa hydrocarbons ka kooban carbon kasta isku haystaan multiple bond ay isku haystaan oo ah double ha noqdeen ama triple ha noqdeen. hadda kuwan waa double kana waa triple waa qaabkaas camal waa laba dabar iyo saddex dabar ay isku haystaan. marxaba. qodobka labaad kii koobaad wuxuu on basis on the bond, laba wuxuu noqon doonaa on basis on the structure. inagoo fiirinayno marka dabarka ama qaab dhismeedka waxaan u qaybin doonaa hydrocarbonska. waxaan kala saari doonaa laba qaybood oo kala ah cyclic hydrocarbons iyo acyclic hydrocarbons ayaan u kala qaadi doonaa. way cyclic hydrocarbons waxaa la yiraahdaa marka aan mid u galno. cyclic hydrocarbons waxaa la yiraahdaa waa these are closed or ring structure hydrocarbons waa yani waxay ka kooban yihiin ama ay ka kooban yihiin yani waxaan leenahay waa these are closed or ring structure waa closed way kuwa isku xiran ama wareeg sameeyo qaab dhismeedyo hydrocarbons ah kuwaas oo isku xiran closed ah
ama ringi samaynayo. طبعا ringi waa wax طبعا qaabkaas isugu xiran oo maxaan ku sheegay يعني wuxuu isugu xiran yahay ringi 4 geesood 3 geesood 5 geesood ringi wax يعني qaabkaas waa closed wuxuu noqonayaa wax noocaas camal circle ama qaabkaas isugu xiran. marka these are closed ring structure hydrocarbons waaye waxaa la yiraahdaa waa hydrocarbons leh ring ama wareeg leh ayaa la yiraahdaa qaybtan cyclic way cyclic marka intaan u qaybsamaa qaybtan ay hoos tagto alkane cycloalkane oo hadhow la dhigi doono closed structure alkanes sidoo kale to cycloalkane ayaa ku xigto oo iyadana ah closed structure alkanes cycloalkane ayaa ku xigto ah closed structure alkanes ayaa ku xigto qodobka ku xiga wuxuu noqon doonaa isagana aromatic hydrocarbon aromatic hydrocarbons waxaan leenahay marka which is further divided into aromatics kan laftirkiisa waxa loo qaybiyaa benzenoid iyo non benzenoid in ABC la xogaa meeshan benzenoid iyo non benzenoid waxay hoos tagaan aromatics ayay hoos tagaan okay benzenoid maxaa la marka non benzenoid isna maxaa la benzenoid waxa la waa aromatic hydrocarbon ah kaas oo ka kooban isku dhiska ama ringiga ama wareegga benziinka uu lahaa ayay ka kooban yihiin benzenoid benziinka wareeggu lahaa ama ringiga benziinka ku kooban wuxuu ahaa 6 kaarboon iyo 6 hydrogen muxuu ahay 6 kaarboon iyo 6 hydrogen dabar ahaana wuxuu ka koobnaa 3 single bond iyo 3 triple double bond ayuu leeyahay benziinku wuxuu leeyahay 3 single bond iyo 3 double bond ayuu leeyahay laba double bond kastana hal single ayaa u dhaxeeyo marxaba nan benzenoid ku marka kalimadan marka nan ah it means diidmo waay marka benzenoid waxaan ku soo heshiinay inuu ka koobnaa benzene ring dabcan tan waxay noqon doontaa nan maadaama laga hormariyay benzenoid benzene ring kama koobna 6 kaarboon iyo 6 hydrogen kama koobna aromatics mintan waa lagu cadday waxa lagu aromatic hydrocarbons waaye that do not contain kama koobna benzene ring marxaba acyclic ku soo marka kelimada marka macnaheedu waa diidmo waaye acyclic aan yani isku laabnayn acyclic aan wareeg lahayn yani acyclic hydrocarbonska noocyadooda aan lahayn wax maxaan ku sheegay wareega ama ringa aan lahayn ayaa halkan gelinayaan waxa la yiraahdaa these are open chain structure dabcan waa silsilad furan hydrocarbons ah sidoo kale waxaa loo yaqaanaa aliphatic hydrocarbon waa la yiraahdaa واي أرجع واري جريجا أسأل كيسة طبعا مركل لقى قيح ما لقى هذا يعني وحلا يعني حيوان دحدة إياه أويل إسكيفات أسأل كود ماشي كيما هذا أرجع واري مركا these are open chain structure hydrocarbons واحد يعني سلسلة فرن معناه هذو وفرن تدير ولا معناه ما وريج ملها هو رينجي ملها مركا open يعني سلسلة قابس ودروا سلسلة قابس ودروا صراحة وسلسلة فرن واين ودروا مركا ما قبل تمنى لكن سلسلة فرن أو واحد وريج عن لين مرحبا دي مركا دي subdivided into waxa loo qaybiyo marka alkane iyo alkane loo qaybiyo marxaba aan sii socono qodobka saddexaad oo ahaa classification of hydrocarbons wuxuu yahay sources and properties noqonaya on the basis aan ku saleynayno their sources and properties astaamahooda yani ilaah laga helo iyo properties-kooda astaamahooda anagu fiirinayno waxa loo qaybiyo laba qaybood oo kala ah hydrocarbons classified into two types oo kala aliphatic hydrocarbons iyo aromatic hydrocarbons ayaa la kala qaybiyo aliphatic hydrocarbons-ka adaata sidaan ku soo aragnay kor hadaan ku sheegay isna wuxuu ahaa these are hydrocarbons waaye hydrocarbon derived laga keenay laga soo miinguriyay laga dhalaaliyay laga yani asalkooda ka imaaday chemical degradation burburin kiimikeed ayay ku imaadeen oo la burburiyay fat and oil dux ayaa la burburiyay iyo waxyaabahan oil isku dhaw saliidaha iyo wixii la midka waxa loo qaybiyaa marka ilaa 3 qaybood oo iyana ah alkane iyo alkane dabcan qaybtan dhowr mar waan ugu soo laabatay يعني وانا waxa ay ka kooban yihiin hydrocarbons inta badan waxa ay ka kooban yihiin saddexdan ay badan yihiin sidarteed inta badan waa arki doonaa aromatic hydrocarbons iyana waxaan halkan gelinaa aromatic hydrocarbons waxa leenahay iyagana oo ah yani qayb kamid ah ama mid kamid ah kan wuxuu ahaa kan aliphatic oo ah qodobka labaad oo ah aromatic hydrocarbon iyo halkan geli doonaa sagan aromatic hydrocarbon waxa leenahay marka waa these are hydrocarbons waa hydrocarbon obtained laga helo by chemical degradation يعني burburin kiimikeed ayaan laga helaa certain anti-smelling plant extract يعني aromatics ka waa waxyaabaha u saaxiibka ah waa waxyaabaha inta badan la carfisto ama la hangariyo ama waxyaabaha carfaayo ayaa waxa la aromatics marka asalkooduna waxay ka yimaadeen dhir la burburiyay iyo waxyaabaha la xiriiro oo chemical degradation oo ku imaaday ay asalkoodu yani yihiin sidaa darteed sina laba loo qaybiyaa oo kala ah benzenoid iyo non benzenoid ayaa loo qaybiyaa qeexitaanadooda horaan ku soo aragnay oo benzenoid wuxuu ahaa aromatic ka kooban benzene ring kana wuxuu ahaa aromatic that do not contain benzene ring iyo hadaba
aad aad u mahadsantihiin cashirka inoo xigo ayaa inoo balana ilaa idankiisa. Thank you very much.